Tanzania, dalka duurjoogta ugu badan Afrika ay ku nool yihiin, waxaa lagu tilmaamaa guriga beeraha ugu waaweyn duurjoogta waxaana waddankan dhaca Serengeti National Park halka uu ka dhaco safarka weyn ee duurjoogta, waxaana ka guura malaayiin xayawaano ah sanadka oo dhan. Tanzania waa dal Alla ku manaystay duurjoog badan iyo kumanaan nooc oo xayawaano ah, waxaana dhacda waddankan buurta ugu dheer Afrika ee Kilimanjaro, waxaana sanad kasta dalkan dalxiis u yimaada dad lagu qiyaaso 2.14 milyan si ay u daawadaan quruxda dabiiciga ah ee dalkan iyo xayawaanada kala duwan ee ku nool dalka Tanzania. Haddaba muuqaalkan waxaan dhowr dhinac iska dul taagi doonaa dalka Tanzania inagoo la faguri doona juqraafi ahaan halka uu dhaco, dhaqamada kala duwan ee dalkan dadkiisu leeyihiin iyo deegaanka dabiiciga ah ee dalka Tanzania. Tanzania waa dal dhaca koonfur bari qaaradda Afrika, meel dhanka koonfureed ka xigta xariiqda dhulbaraha. Dalkan saddexda jiho ee kale waxaa kaga hareeraysan dalalka kale ah Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Zambia, Malawi iyo Mozambique, halka dhanka barina ay ka xigto Badweynta Hindiya. Tanzania waxaa la aasaasay sanadkii 1964 kadib mideyntii Tanganyika iyo Zanzibar, waxaana 99% dalkan uu ka kooban yahay dalweynihii Tanganyika. Caasimadda rasmiga ah ee dalkan waa Dodoma, halka magaalada Dar es Salaam ay tahay xarun dhaqaale iyo dekedda ugu weyn ee dalkan. Jasiiradaha Zanzibar, Pemba iyo Mafia waa kuwo leh maamullo u gaar ah, loona yaqaan Zanzibar Revolutionary Government, waxaana arrimaha difaaca, siyaasadda dibadda iyo lacagta guud ahaan maamula dowladda Tanzania. Tanzania cimil ahaan waa dal kulul intiisa badan maadaama ay dhacdo meel ku dhow xariiqda dhulbaraha, taasoo keentay in qorraxdu si toos ah ugu dhacdo sanadka oo dhan, halka meelaha qaar ay yihiin kuwo diiran ama qabow sida Arusha, Moshi iyo hareeraha buurta Kilimanjaro. Waxaana u sababa goobahan inay noqdaan kuwo qabow inay yihiin kuwo buuraley ah oo ka sarreeya deegaanada kale. Tanzania ma laha webi dheer oo dhex mara dalka, haddana waxaa la dhihi karaa waa meel saamaysa qaybo muhiim ah oo ka mid ah biyaha Afrika, waxayna gacan ka geysataa saddexda webi ee kala ah Nile, Congo iyo Zambezi. Webiyada ugu waaweyn dalka Tanzania waa kuwo ku qulqula Badweynta Hindiya. Tanzania waxaa ku yaala harooyin lagu qiyaaso 59,000 oo kiiloomitir laba jibaaran, waxaana dhacda waddankan Lake Victoria, harada labaad ee ugu weyn dunida ee laga helo biyaha macaan. Dhulkan boqolkiiba 12 ayaa la beeran karaa, waxaana u sababa arrintan in meelo badan oo ka mid ah dalkan ay yihiin buuraley iyo haro biyo-degeen ah, halka meelaha qaarna ay yihiin kuwo qallalan sidoo kalena aanan helin roobab ku filan. Dadka Tanzania waxay ka kooban yihiin in ka badan 120 qowmiyadood oo asal ahaan Afrikaan ah, waxaana dalkan looga hadlaa 2 luuqadood oo rasmi ah: Kiswahili oo ah luqadda qaran ee dalkan oo ka kooban lahjado Bantu iyo Carabi asal ahaan ka soo bilowday xeebaha bariga Afrika iyo jasiiradda Zanzibar. Luqadda labaadna waa Ingiriiska oo loo isticmaalo heerarka sare ee waxbarashada iyo xafiisyada dowladda. Dadka dalkan saddex marka loo qaybiyo, qayb ka mid ah waa Muslimiin Sunni ah, halka labada soo hartayna ay yihiin Kiristaan haysta diinta Masiixiga. Waxaana jira dad haysta diimo dhaqameed ay aaminsan yihiin inkastoo aysan badnayn dadkaasi. Dadka ugu badan dalka Tanzania waxay ka soo jeedaan qowmiyadaha Bantuga, si gaar ah qowmiyadda Sukuma, waxaana lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin 10 milyan oo qof. Waxaana laga helaa inta badan agagaarka harada Victoria oo dhacda waqooyiga dalka Tanzania. Waxaana sidoo kale jira qowmiyado kale oo dalkan si weyn u dega. Qowmiyadda ugu tirada yar dalkanna waa qowmiyadda Sanaki, kuwa oo degan meel u dhow Masuma ee gobolka harada Victoria. Waxaana xusid mudan in qowmiyaddan uu ka soo jeedo aasaasihii Tanzania ahaana madaxweynihii ugu horreeyay ee Tanzania. Tanzania waa dal hodan ku ah kheyraad dabiici ah sida dahabka, dhagaxa tansaneedka, gaaska dabiiciga ah, dhuxusha iyo diamond-ka. Warshadaha macdanta ayaana ah qayb muhiim ah oo ka qayb qaata dhaqaalaha dalka, iyadoo dhoofinta macdantan ay soo saarto $100 milyan sanad walba. Isha labaad ee ugu weyn dhaqaalaha Tanzania waa dalxiiska, waxaana sanad walba u soo dalxiisa dalkan 100,000 oo dalxiisayaal ah maadaama Tanzania ay caan ku tahay beeraha ugu badan ay ku nool yihiin duurjoogta qaaradda Afrika, taas oo soo xareysa sanad walba dhaqaale kor u dhaafaya $3.9 bilyan. Waxaana jirta il saddexaad oo dhaqaalaha Tanzania uu ka yimaado waana warshadaha iyo adeegyada bulsho. Tanzania waxay leedahay warshado sii kobcaya kuwaas oo soo saara badeecooyin kala duwan sida cuntooyinka, dharka, alaabaha dhismaha, adeegyada bangiyada, isgaarsiinta iyo gaadiidka, iyadoo dowladda ay ku dadaalayso casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, dekedaha iyo korontada. Guud ahaan dhaqaalaha Tanzania waa mid kobcaya oo leh rajo ballaaran, inkastoo ay jiraan caqabado sida saboolnimo, shaqo la'aan iyo ku tiirsanaanta beeraha.
haddana dadaalka dowladda iyo shacabka ayaa horseeday in Tansaaniya noqoto mid ka mid ah dalalka ugu xasiloon ee qaaradda Afrika. Waxaan halkaas ku soo koobaynaa warbixintii ku saabsan dalka Tansaaniya ee dhaca bariga qaaradda Afrika.